السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومحسنتي مقال وحن ربا إن ندكل وذاقه دولة فدرال كاه مريكان كأوجو أنصتي إن دتك الصومالي ده تي بي إس تهايستو لجا كنسل دونه مركا أي دماتو بشا ماج إسلا مركا أنا لو هي إن يودن كيسجب بحان هدي أي كب حوايانا لسوق بان دونه لحرد دونه كدبنا لمسافرين دونه أرنتاسي وان إذن لوذاقية gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis xaalad adag ayaa ka taagan ciidamadii ICE waa ay sii badanayaan qabqabashadana waa ay badinayaan sidoo kale waxaa jirta in xitaa dadkii qaxooti ahaan ku yimid amaba group 5 amaba dawladdu ay qaxooti ahaan ku keentay oo I-94 ka haystay in hadda la xirayo arrimahaasina waan idin la wadaagaya iyo maamulka gobolka oo ay weheliyaan labada magaalo ee Minneapolis iyo waliba St. Paul oo dacwad ka gudbiyay wasaaradda amniga gudaha iyagoo maxkamad ka dalbanaya ciidamada ICE inay isaga baxaan guud ahaanba gobolka Minnesota wasaaradda amniga gudaha gaar ahaan wasiirkeeda Christine Ohm oo wax ka bedeshay siyaasadda xildhibaanada ama Congress-ka Mareykanku ay ku booqan karaan xarumaha ICE dadka markii ay soo qabtaan ay ku hayaan arrimahaas oo ayaan idin la wadaagaya iyo waliba in miisaaniyadda ay xubna dimuqraadiyiin ay ugu hanjabayaan ICE in laga jaro mudaharaad ballaaran oo 23 bishan hogaamiyaasha diimaha ee gobolka Minnesota ay ku baaqeen waan idin la wadaagaya arrimahaas oo balse marka hore soo dhawaada waxaan ogeyn in madaxweyne Trump bishii November uu yiri Soomaalida haysata TPS ama Temporary Protection Status waa kan kansalaya hadda waxaa soo baxday maanta dawladda Mareykanku inay go'aansatay in dadka Soomaalida ee haysta TPS waa Temporary Protection Status oo loogu talagalay qofku inuu wadanka ka shaqaysan karo isla markaana aan la masaafurin karin in laga kansalayo bisha March 17 marka ay dhamaato warkan maanta ayuu soo baxay waxaana dawladda federaalku ay leedahay dadkan ilaa iyo 2500 markii hore waxa la dhahay 705 qof ayaa haysata temporary protection laakiin hadda waxay leeyihiin 2500 oo qof oo Soomaali ah marka bisha March la gaaro 17 waa inay wadanka isaga baxaan oo ismasaafuriyaan haddii kale waan soo qabanaynaa waan xireynaa kadibna wadanka waan ka masaafurinayna marka waxa wasiirka amniga gudaha mar hore loo weydiiyay ay sheegtay sababta temporary loo yiri waxay tahay wadanka ay dadkaasi ka yimaadeen xaaladiisa haddii amni ay isbedesho in dadkaasi wadankooda dib loogu celin karo marka hadda waxa muuqata in dawladda Mareykanku ay go'aansatay in dadka Soomaalida ah ee TPS ta haysto oo ku dhawaad 500 oo kamid ah la leeyahay gobolka Minnesota ay ku nool yihiin in gabi ahaanba dawladdu ay ka kansalayso kadibna dadkaasi ay dawladdu leedahay waa in ay wadanka isaga baxaan haddii kale waan soo qabanaynaa waan xireynaa kadibna waan masaafurinaynaa wadanka mar kale dib ugu soo laaban karaan marka arrintaasina maanta ayay soo baxday in dawladda Mareykanku ay go'aansatay hore dadka Etoobiyaanka iyo wadamo kale badan ayaa laga kansalay marka in maxkamad la isla tagana waa macquul oo dadku ay ka dacwoodaan maadaama Trump uu leeyahay meeshaasi wadan ma jiro dawladda kama jirto haddana ay leeyihiin wadankii xaaladiisa waa wanaagsanaata dadkiina waan ku celinaynaa arrintaasina sidoo kale su'aal ayaa ka taagan laakiin dawladda Mareykanku waa ay go'aansatay arrintaasi warka maanta soo baxay sidaasi ayuu sheegaya dhinaca kale xaaladda ka taagan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waa ay cakiran tahay ciidamadii ICE marba marka ka dambeeya waa ay soo badanayaan hadda waxaa la arkayaa in meelo kala duwan dadkii ay ka xirayaan dukaamadii agtooda horta meelaha ICE ay dadka ka qaban karaan maxaa kamid ah waxyaabaha kamidka waxaa kamid ah sidewalk wadada dhinaceeda adigoo socdo waa ay ku xiri karaan parking lot meel parking haddii ay kugu arkaan ama dukaan ahaata ama meel kale ahaata parking lot haddii ay kugu arkaan meelaha baabuurta la dhigto meelaha dadka ay ka xiri karaan ayay ku jirtaa waxaa sidoo kale kamid ah meelaha baakiska oo dadku ay tagaan oo caruurta lagu soo ciyaarsiiyo waa ay ka xiri karaan dukaamada gudaha ma gelayaan laakiin banaanka parkingkay kugu sugi karaan oo dukaamada adigoo soo adeeganaya halkaasi waa ay ka xiri karaan waxaa sidoo kale kamid ah maqaaxiyaha inay geli karaan oo ay ka soo xiri karaan marka meelaha aan loo ogoleen waxa kamid ah iskuulada goobaha cibaadada sida kaniisadaha masaajida qof gurigiisana sidoo kale xorriyada u leeyahay ayagoon warranty wadan iska ma soo geli karaan laakiin hadda waxa la arkayaa inay meel kasta ay galayaan waxaan arkaya hadda gabadhan Soomaalida oo kale waxa la leeyahay waa gabar wadanka qaxooti ahaan ku timid oo I-94 haysato Wilmar ayaa shalay ay ka xireen gabadhan kale sidoo kale Qatra ayaa la yiraahdaa aad ayaan isku garanaynaa TikTok-keeda ayaan dhowr jeer hadda ka hor aan ka qayb galay mar aan la hadlayay dadka su'aalo ay weydiinayeen shalay galinkii dambe dadka wadanka iyaduna darbi ka soo boodka ay ahayd oo wadanka dhawaan soo galay waxa la leeyahay suuqa karameel agtiisa ayaa laga qabtay waxa la ii sheegay hooyo laba wiil oo kale
oo iyaguna wadanka qaxooti ahaan ku yimid oo I-94 haystay in inta la qabtay gurigooda iridooda iyagoo soo adeegtay ilaa hadda la laayahay wararku waxay sheegayaan in Texas laga tuurayba dadkaasi la qabtay waayo ICE markay qofka qabtaan goobta Wibler ay geeyaan oo si ku meel gaar ah halkaas loo wahaynay kadibna diyaarada ayaa la kala qaadaa xabsiyada waaweyn oo ICE leedahay ee gobolada Mareykanka ayaa la kala geeyaa marka hadda dadkii ama group 5 ku yimid ama sidoo kalena ku yimid qaxooti ahaan oo dawladdu ay keento I-94 haysto weli green cardkii amaba uu xareysan yahay amaba aanan xareysanin xitaa dadkaasi waa la qabanaya because Trump waa kii yiri dadka ilaa iyo 5600 oo Minnesota qaxooti ahaan ku yimid dib ayaan baaris ugu sameynayna marka qof wadanka sharci ku yimid in la qabto oo la xiro arintaasina kulay sharciyan looyaradu waxay leeyihiin waa qalad laakiin maamulka Trump wixii uu doono ayuu sidoo kale sameynaya dhinaca kale shalay waxaa jirtay in xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison oo ay heliyeen labada maayar ee Minneapolis iyo St. Paul Jacob Frey iyo waliba Cole Hale inay shir jaraa'id qabtoon yiraahdeen dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha dacwad ayaan ka gudbinaynaa Keith Ellison ayaa waxa uu sheegay in dacwadan ay tahay in garsoore ay weydiisanayaan in gabi ahaanba la gabagabeeyo howlgalka ciidamada ICE ay ka wadaan gobolka Minnesota waxaana ku tilmaamay duulaan lagu soo qaaday labada magaalo ee mataanaha ah waxaana uu xaqiijiyay in wasaaradda amniga gudaha ay ku xadgudbayso dastuurka gaar ahaan qodobka 1 iyo waliba qodobka 10 arrintaana waxa loo baahan yahay gabi ahaanba inay istaagto ayuu yiri maxkamadda waxaan ka dalbanaynaa in si ku meel gaar ah ay noogu ogolaato in ciidamada ICE gabi ahaanba ay joojiyaan howlgallada ay ka wadaan gobolka Minnesota uu ku tilmaamay howlgal sharci darro ah waxaana uu sheegay in hadda ay bilaabeenba inay bartilmaameystaan iskuulada ganacsiyada isbitaalada goobaha dadku ay wax ku caabudaan iyo sidoo kale goobaha tacsida guryaha marka dadkan cadaanka meel waxa jira qofka markay dhintaan la geeyo kadibna halkaas meedkiisa laga qaado marka waxa uu sheegay in awood xad dhaaf ay isticmaalayaan iyagoo aan warranty haysanna ay dadka iska xirayaan marka waxa uu yiri arrintaasi waa arrin qalada dadka soo galootigana sidoo kale midab sooc ay ku sameynayaan ayuu yiri isla markaana waxa ay xirayaan dadka Latinoga amaba waliba Soomaalida ah iyagoo arrintaasina uu ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah marka waxa uu yiri hadii ay doonayaan in sida dowladda federaalku ay sheegayso in musuqmaasuqa ay wax ka qabtaan waxaan soo dhaweynaynaa dad xisaabiyaal ah inay soo diraan isla markaana arrintaasi aan ka wada shaqeyno laakiin waxa hadda socda arrintaasi ma ahan ayuu yiri waa arrin xadgudub ah oo dadka cabsi iyo qalqal iyo qalalaaso lagu abuurayo marka maxkamadda ayay maanta dacwadaasi u gudbinayaan waxaana laga yaabaa in loo ogolaado in ciidamada ICE ay joojiyaan howlgallada isla markaana ay ka baxaan gobolka Minnesota laakiin dawladdu waa ay soo kordhinaysaa marka xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison oo arrimahaasi dhinaca kale maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa isaguna waxa uu sheegay howlgalkan ama tillaabooyinkan ciidamada ICE ay wadaan waxay ku qatar ay ku galinayaan community-ga ammaankooda waxaana uu sheegay in ereyga ah invasion ama duulaan ma ahan mid si fudud aan inta badan aan u adeegsano marka waxa uu yiri kumanaan kamid ciidamada ICE ayaa waxay saameyn ku yeelanayaan nolol maalmeedka dadka ku dhaqan magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis caruur iskuul aadi lahayd dad ganacsigooda furan lahaa markana waxa uu sheegay arrintaas inay tahay arrin qalad ah oo loo baahan yahay in ay ciidamada ICE gabi ahaanba ay soo gabagabeeyaan waxa uu yiri 50 askari ayaad arkaysaa oo hal qof isla markaana doonaya inay xiraan markaas waa dareemi kartaa tirada intay la egyihiin maayarka magaalada Minneapolis oo arrimahaasi ka hadlaya kale wasiirka amniga gudaha ayaa waxay wax ka bedeshay siyaasadda dhinaca booqashada meelaha ciidamada ICE marka dadka ay soo qabtaan ay ku hayaan sabtidii waxa ogeyn Ilhaan Cumar iyo laba xildhibaan oo kale inay tageen xarunta Wibler oo marka ay dadka qabtaan ICE ay ku sii hayaan waana loo diiday inay galaan marka waxa kamid ah hadda siyaasadan cusub waxa ay tiri xildhibaanada doonaya inay booqdaan goob ICE ay leedahay isbuuc ka hor waa inay codsigooda ay soo gudbiyaan haddii isbuuc ka yar ay soo codsadaan muddo ka yar aniga ayaa ah qofka saxiixaya oo ogolaanaya sidaas darteed marka waxay tiri go'aankaasi aniga ayuu uga go'aa siyaasadaasina hadda ayay soo saartay dhinaca kale waxaan ognahay dawladdu inay xirmayso mar kale miisaaniyad ay ku sii shaqaysay aysan jirin 3 bishan January oo hadda 17 maalmood ay ka harsan tahay marka xildhibaanada dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin miisaaniyadda ICE waan diidi doonaa in lagu daro miisaaniyadda la ansixin doono hadiiba laga yaabo in dawladdu mar kale ay xiranto waxaan ognahay in laga soo bilaabo December ilaa November 13 43 maalmood dawladdu ay xirneed haddana arrintii caafimaadkii uu isku haystay wali waa ay taagan tahay arrintan ICE ayaa soo korodhay marka xildhibaanada dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin
ice miisaaniyadooda ayaan ka reebi doonaa miisaaniyadda la meel marinayo arrintaasi oo maamulka Trumpna uu diidi doono marka shutdown oo government oo dowladda inay xirnaato oo muddo dheer ah ayaa inay soo socoto halkaasi ka muuqanaysa dhinaca kale hogaamiyaasha diimaha ayaa iyaguna maanta shir jaraa'id qabtay oo xitaa culamaa udiin Soomaaliya ay ku jireen waxayna ku baaqeen mudaharaad ballaaran 23 bishan oo hadda 10 maalmood ay ka harsan tahay waxay yiraahdeen maantaasi shaqo lama aadayo iskuul lama aadayo wax dukaamo ama ganacsi furayana ma jiraan ama shopping aadaya marka waxay tahay maalin la doonayo in la isku soo baxo si mudaharaad ballaaran looga sameeyo Minneapolis iyo waliba St. Paul dhinaca kalena waxa muuqanaysa hadda dowladda federaalku inay leedahay askarigii cadaanka ahaa ee ay iska tirsanaa ee gabadhii cadaanka ahayd dilay arbacadii la soo dhaafay Jonathan Ross in wax dacwado dambiyaha aan hadda lagu soo oogaynin dowladda federaalka ama FBI-da ayaa baaritaanka waday gobolka waa tii loo diiday marka sida muuqata hadda waxay leeyihiin askarigaasi waa uu isdifaacayo wax oo dacwadaha oo lagu soo oogayo ma jirto gabadhaas 37 jirka Renee Nicole Good ayuu dilay asagana Jonathan Ross ayaa la yiraahdaa marka waxa ay leeyihiin hadda wax dacwada ah oo lagu soo oogayo ma jiraan arrimahaas ayaan rabay inaan idin socodsiiyo waxyaabaha kale ee soo kordha haddii aan leedmo waa idin la soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta sida iyo nabadgelyo